ka waran ganacsi ayaa maanta oo lagu jiro 2026 ku bixinayo $10,000 si muuqaal xayeysiin loogu sameeyo sigoo adeegsanayo qof caan ah. Balse muuqaalkii lagu bixiyey $1,000 ee xayeysiinta waxaa dhacayso kadib markii la saaro muuqaal xayeysiin oo lagu bixiyo lacag kaleeto in wax natiijo ah ku imaan weyso. Khalaas halkaas oo quus iyo niyad-jab uu ka bilowdo. Nase bishaarayso qiiqadaha soo socda waxaan kula wadaagayaa si kuu badbaadin doonto lacagta fara badan baad ku gubayso samaynta muuqaal xayeysiin. Waxaan ku tusi doonaa exact AI systemka aan isticmaalo si aan u sameeyo scroll stopping UGC bilow ilaa dhammaad. Ma jiri doonto jilayaal aan u baahannahay aan soo kiraysan doono. Ma jiri doono studio iyo kaamirooyin qaali ah. Dhamaysa muuqaalka oo ka mid noqo asxaabta ku xiran Amjad Digital. Like-ta iyo subscribe-ka waa inoo muhiim. Haddii aan guda galno diyaarinta muuqaal xayeysiin khaasatan UGC. Ugu horreyn maxaa laga soo gaabiyey UGC. Ereyga UGC waa User Generated Content. Waa muuqaal uu sameeyey qof caadi ah sida macaamiil sigoo sharxayo adeeg ama product. Macnaha muuqaal caadi oo dabiici ah inuu qofka ka sameeyo product ama adeeg si caadi ah una sharaxaad uga bixiyo faa'iidooyinka uu leeyahay ama waxyaabaha uu markuu isticmaalo kadib uu iska dareemay. Si aan u sameyno muuqaalkaas xayeysiinta maanta waxaan qaadanaynaa tusaale ah supplementigan ayaa waxaan u sameynaynaa UGC ama video xayeysiin ah. Ugu horreyn marka videogaas marka aad sameynaysid waxaa lagaga baahan yahay inaad soo aruursato sawirada ama ideyada. Ugu horreyn muuqaalka waxaa ka horeeyo in fikrad lasoo dhiso. Waxaan isticmaalaynaa Pinterest annagoo kasoo raadinayna sawiro oo aan ka heli karno fikrad. Sawiradaas ayaa waxaan ka dhigi doonaa muuqaal. Sawiradaas markaan soo aruursano qof walba aan u baahannahay oo productigeena la xiriiro hadday noqoto background hadday noqoto avatar ama weji ayaa halkan kusoo diyaarsanay. Sidaa meeshaan uga jeedid waxaa inoo diyaar ah sawirada aan u isticmaali lahaynay. Sawiradaas aa halkaas uga jeedid productigii. Okay, intaas markaan soo diyaarsanay waxaan isticmaalaynaa Gemini. Daarta waxaa isticmaali kartaa ChatGPT hadba midkii kuu fudud. Waxaan kaloo isticmaalaynaa VO3. Okay, VO3 marka waxaa ku samayn doonaa sawirada iyo muuqaalka. Okay, steps-ka aan marayna waxaa waaye kow waxaan soo diyaarsanay sawiradii aan ka dhex samayn lahaynay ideyada videoga ama fikradda videoga. Waayo videoga waxaa loo baahan yahay inuu hook lahaado wax dadka soo jiidanaya in lagu bilaabo. Problem in oo meesha ku jiro in testimonial qof productiga tijaabinayo oo kale inuu ku jiro iyo waxa la dhahayo over oo ah ama CTR qaybta ugu dambeysa ah qof wax ku qasbayo inuu linkiga ama message kula soo sameeyo ama website-kaaga oo booqdo. Okay, halkan markaan joogno marka waxaa isticmaalaynaa VO3 waxaa ku isticmaalaynaa inaan sawir ku abuurno iyo inaan muuqaal ku sameyno labadaba. Waxaan ka isticmaalaynaa VO3. Okay, marka Gemini ayaan ku hormaraynaa. Gemini marka waxaan soo gelinaynaa sawiradii aan soo diyaarsanay wejigii aan rabnay inaan ku sameyno. Wejigan oo kale waxaa waaye qofka aan wax inaan ku xayeysiin aan rabno. Waxaan leenahay qoraal Soomaali ayaa ku qori kartaa. Waxaan rabnaa inaan anagoo isticmaalayna wejigan aan ku bedesho sawirka koowaad style-kiisa ama inaan isticmaasho prompt ayuu kuu diyaarinayaa. Marka Gemini wuxuu naga caawin doonaa prompt inaan qoraal Soomaali aan ku qorno. Qoraalkaas Soomaali markaan ku qornane wuxuu ina siinayaa prompt oo English ku baxayo. Promptgaas oo fahmi kariyo VO3. Promptiga ayaan soo koobiyeysanay hadda sidaa ujeeda halkan waxaa waaye wuxuu ina siiyey prompt hide detailed photo realistic. Koobi soo dhaho waxaa imaanaynaa VO3. Marka VO3 waxaa ku isticmaali kartaa qayb image iyo qayb wuxuu leeyahay video. Halkan marka aad joogno marka VO3ga waxaa soo qaadanaysaa sawirkii labadii sawir aan isticmaalaynay iyo promptiga ayaan ku paste gareynaynaa. Okay, marka ku paste gareyno sawirka ayaa inoo soo baxay. Mid kamid ah ayuu saxay kuwa badan u qalday. Hadduu kaa qaldo waa ku celcelinaysaa. Halkaas sawir waa sawirkeena koowaad oo actorka ama qofka wejigiisa aan isticmaali doono. Waana isla sawir qofka productiga xayeysiinayo. Okay. Next marka
qaabkaas ayaan ku sii wadaynaa. Waxaan isticmaalaynaa sawirka labaad. Waxaan rabaa in sawirkan backgroundka in aan ka dhigo meel oo farmashi oo kale inuu joogo. Waxaa ii samaysaa prompti. Wuxuu ii diyaarinayaa promptiga ayuu ii diyaarinayaa. Waxaan la imaanayaa VO3 sida ujeedid VO3 markaa imaano wuxuu inoo soo diyaariyey sawirkii ayuu halkaa inoo soo diyaariyey. Waa background ayaan ka bedelnay. Okay. Marka dhammaan waxaan soo diyaarsanaynaa sawiradii aan ugu talagalnay inaan ku sameyno videogeen xayeysiinta. Marka video wuxuu ka koobnaa doonaa ilaa 5 kilib. 5 kilib 5 sawir ka sameynaynaa. 5taas sawir ayaa waxaa ka soo dhex saaraysaa 5 video oo kilibya ah. Dan waxaan sameynay sawir labaad oo ah another actor kaleeto oo gacanta ku haya productigi maaragtay waxyaabo sharaxaadana ay ku jiraan. Waxaan kasii wadaynaa marka sida aan halkaa ugu jeedno waxaan sameynaa haddana actor kaleeto oo dhammaan kuwaan dhan waxaa waaye waa kuwa aan sawirada aan soo diyaarsanay. Dhammaantood waxaan soo gelinay Gemini kadibna waxaan la imaanay VO3 waxaana ka sameynay sawirka. Tan kaleeto marka hadda waxaan bilaabaynaa muuqaalkii. Hadda waxaan soo sameysanay promptigii aan ugu talagalnay in muuqaalka aan ku sameyno. Promptigaas ayaan ku baasti gareynaynaa. Marka kaliya waxaan bedelaynaa meesha oo VO3 meesha ay ka aheeday sawirka waxaan ka dhigaynaa video. Marka halkaas waxaa inoo sameysmaayo qoraalkii promptiga ayaan halkaas gelinay anagoo isticmaalayna sawirkii aan soo diyaarsanay. Wuxuu inoo sameeyey muuqaal kilib hal kilib haysanaa oo ah kilibka koowaad. Waan sii soconaynaa marka sidaas anagoo u sameynayno waxaan sii imaanaynaa Gemini sawirka labaad gelinaynaa. Waxaan rabnaa inaan sawirkan video prompt inooga diyaarisid ninkan productka soo gacanta ku haayo qoraaladaas waxyaabahaas aan dhahnay. Waxaan soo koobiyeynaynaa promptiga oo inoo soo diyaariyay Gemini and then waxaan ku baasti gareynaynaa VO3 anagoo video ka dooranayno. Hadda waxay inoo ahayd sawir videogaas ayuu inoo soo diyaariyay. Qaabkaas ayaa waxaan ku diyaarinaynaa mid walba marka waa la degaynaa 4K ayaa kula degaynaa. Waxaan sameynaynaa haddana kilibka saddexaad soo koobiyeysanay dhammaan marka kilibyadii aan sawirada ka soo sameynay ayaa mid walba waxaa ula imaanaynaa Gemini qoraal ayaa ku qoraynaa video ka sameeyaa dhahaynaa. Qaabka fikradda adiga oo aad kugu jirto fikirkaas marka aad sawirkii aad haysato qoraalkii prompt aad ku dartid promptigaas waxaa la imaanaynaa VO3 and then sidaas ayuu inoo soo diyaarinayaa kilibkeenii afaraad. Marka halkan waxaan ku haysanaa kilibyo badan oo aan ugu diyaarinay muuqaalkeena maaragtay xayeysiinta inaan u isticmaalno. Okay, dhammaan marka waa kuwana muuqaaladii waa isla fiirinaynaa midka koowaad, kilibka labaad, saddexaad, kilibyadii aan ugu talagalnay xayeysiinta, kilibka afaraad, dhammaan kilibyadan waa iska jeegaraynaysaa in muuqaal fiican ay kasoo bixi karaan. Hadda marka fikradda waxa ugu muhiimsan waxaa waaye inaad fikrad hesho, fikraddaas aad muuqaal ka diyaarisid. Halkan kadib waxaa la imaanaysaa meesha aad wax ku edit gareynaysay CapCut ama maaragtay hadba ani hadda midkii ay suurtagal ku noqoto. Hadhawadeena la imaanay and then muuqaaladii ayaan isku keenay. Muuqaaladaas marka isku keenaysid marka waxaa ka ilaalinaysaa waxyaabihii qaladaadka kale ayaa ka jaraysaa. Waxaa ku daraysaa marmar qaar waxyaabo yar ku soo daraysaa qaab marka u samaysid meeshaas waxaa kaaga soo baxaya muuqaal qurux badan. Marka waxa ugu muhiimsan fikradda waaye. Fikraddan waxaad ka heli kartaa hadba Pinterest ama hadba TikTok. Fikirkaas marka halkaas ka soo heshid ayaad ku dhaqaaqaysaa. Muuqaalkii waa kana isla daawano. calcium, magnesium, zinc iyo vitamin D3 oo hal meel ku wada jira. afartan maad haddii aad isku qaadid muxuu ka caawinayaa? Haddii aad dareemaysid daal joogto ah, lafo oo ku xanuunaya, dhabar xanuun, dhabarka qaybta hoose ku xanuunaysa, madax xanuun joogto ah, daalku haddii hurdo ka soo kaca iska daalan tahay, hurdo fiican oo aadan helaynin, stress, waxa haddii aad dareemaysid isticmaal supplementigan. Supplementigan faa'iidadiisa lagama soo sheekeyn karo. Waxaynu ugu qaadatay waqti yar inaan ku sameyno muuqaal oo xayeysiin ah. Waxaad samaysan kartaa dhowr muuqaal 20 30 muuqaal oo fikrado kala duwan leh marba midna aad test gareynaysid. Marka dhammaan fikradahaas kala duwan xayeysiin aad diyaarisid iyadoo maaragtay customer ay sameynayaan productiga amaanayaan iyagoo faaloonayaan iyagoo maaragtay feedback ka bixinayaan. waxyaabahaas dhan marka aad soo diyaarisid ayaad waxaad ku sameynaysaa mid walba xayeysiin ayaa saaraysaa. Marka waxaa kaaga soo baxayo midka ugu fiican. Waxaa laga yaabaa 5 muuqaal oo AI inaad ku samaysay iyadoo wax lacag ay kaaga bixin ama kaliya kaaga baxday wax ka yar $30 bishii. Then marka muuqaaladaas aad diyaarisay xayeysiin markaad saartid waxaa ka soo baxayo midka ugu fiican ama fikradda ugu fiican oo hooggeeda uu shaqeeyey
oo maaragtay dadka istaajisay oo dadka soo jiidatay and then dadka ay kula soo hadleen ama productiga ama serviceka ay iibsadeen uma baahnid content creator kaleeto oo si wejigiisa aad isticmaalaysid and then kaaga qaadanaya lacag maybe lacagtaas haddii ka baxdo xayeysiinta ay shaqay weyso haddii ay shaqay weyso idea ama character aa isticmaashay oo AI ah haddii ay shaqay weyso isbuucan marka xayeysiimaha aad samaysa haddii ay shaqay waayaan isbuuca kaleeto new idea new character qaab weji cusub fikrad cusub ayaa samaynaysa adoo isticmaalayo keliya AI hadday noqoto maaragtay VO3 ama hadday noqoto UGC creatorska kaleeto oo la adeegsado oo wejiyada caadiga ah marka optionka adiga haysto waxaa dhihi kartaa qof Soomaali oo noocaas kaliya ii sameey qof wejigiis ayaa geli kartaa wejigaaga ayaa isticmaali kartaa ama maaragtay avatarska ama maaragtay dadka oo actorska oo wejiyadooda la qaato kuwa ugu caansan isticmaali kartaa qof Soomaali ah oo adiga xiiseynaysay ayaad maaragtay wejigiisa isticmaali kartaa waxaan rajaynayaa marka muuqaalkan in uu wax un kaa caawiyey maanta kadibna aad isku dayi doontid inaad samaysatid muuqaalada xayeysiinta tusaale haddii aad u baahan tahay VO3 ama maaragtay Google inaad kan waa iibsanaysaa sanadkii ama maaragtay bishii waxaa ka bixinaysaa subscription si toos ah haddaadan u iibsan karin qiimahoodana waxaa la isticmaalaa farsamooyin badan in maaragtay dadka qaar kaleeto laga iibsado kuwaasoo qiimo jaban qaabka caadiga ah ee aad uga iibsanaysid Google Gemini-ga waxaan rajaynayaa muuqaalkan wax un kaa caawiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kan iyo muuqaal kaleeto intaan iskugu kulmi doono nabadgelyo